nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa jira xadiid xasan culimmadu ay ku tilmaamayaan ducaa suuqa xadiidkan sheegaya waxa uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka subaxii suuqa markuu gelayo yidhaahda laa ilaaha illa allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wa calaa kulli shayin qadiir yidhaahda waxaa loo qoraa buu nabigu yidhi alfa xasana waxaa laga masaxaa alfa sayi'a alfiga ma taqaani luqada carbeed waxaan hadda milyuunka la yidhahdaa kuma jirin alf waa kun lagu dhuftay lagu dhuftay waa maxay waa 1 milyan hal duco oo sadar ka yarba hadaad akhrido kun dambina laga masaxaya waa 1 milyan oo dambina laga masaxaya 1 milyan oo ajarna aad leedahay laakiin waxay culimadu yiraahdaan waa waqtul ghafla oo dadku ma haleelo dukaanka yaa rasaaq yaa fataahdu bilaabaa hunguri bilaabma rabbi ba dadku inta badan waa waqtiyada ilaabaan laakiin suuqa markaad galaysa hadaad ku bilowdo wuxuu nabigu tilmaamaya waxa kan awqaatil ghafla nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya cibaadada dadku ay la yimaadaan waqtul harj aw waqtul fitna waqtiga dilka iyo dhacaya boobka iyo dhibaatooyinku jiraan qofka cibaadaysta waa ka hijratin ilayya buu nabigu yiri hijra aniga leeyso hijrado kale wal hijratu tajubbu ma qablaha di xadiiskii al-islaam yajubbu ma qablaha hijraduna sidoo kale ayana waa tirtirtaa hijra nabi maxamed aad u haajirtay bay la mid tahay baa la leeyahay waqtiga fitanka iyo imtixaanku jiraan hadaad adigu cibaadada badsato bal nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya salaad bayna u fadli badantay marka faralka laga yimaado tala tukada waa naasu niyaam dadku markay hurdaan hadaad adigu kacdo habeenkii markay dadku hurdaan hadaad adigu salaad u kacdo fariidada shanta kadib waa ta u fadli badan la tukado idan waxaynu u baahanay dhikriga iyo ducaaga iyo rabbi subhanahu wa ta'ala xasuustiisa inaynu in badan badino oo in badan ilaahi subhanahu wa ta'ala ku xidhano